xildhibaan reer Hindiya iyo qaar ka mid ah qolyaha garabka midig u janjeera ayaa sheegtay dhismaha caanka ee lagu magacaabo Taj Mahal in uu yahay macbad ay leeyihiin Hinduugu. Vinay Katiyar oo ka tirsan xisbiga magaciisa loo soo gaabiyo BJP ayaa dhawaan dawladda weydiistay in ay bedesho magaca iyo asaanta dhismaha loona qiro in uu dhisay hogaamiye haysta diinta Hinduuga. Warbaahinta ayaa hadalkiisa aad u boonboonisay, taasina ayaa waxay u horseeday in uu taageero weyn ka helo kooxo badan oo ka tirsan garabka midig. Xaqiiqada ma jirto caddayn la taaban karo oo sheegaysa xaqiiqada dhabta ah ee hadalkaasi lagu xoojin karo, taasi beddelkeedana taariikhyahanada intooda badan iyo dawladda India waxa ay isku waafaqeen in uu tusaale wanaagsan u yahay nashqadda dhismahaasi muslimiinta dalka India. yaa dhisay dhismahani? Taariikhda rasmiga ah ee laga diiwaangeliyey Hindiya waxay sheegaysaa in hogaamiyihii boqortooyadii lagu magacaabayay Mughal, ninka magaciisu ahaa Shah Jahan, in uu u dhisay Taj Mahal si loogu xasuusto xaaskiisa lagu magacaabayay Mumtaz Mahal. Mughaliyiinta oo asal ahaan ka yimaaday bartamaha Aasiya ayaa maamuli jiray in badan oo ka mid ah dalalka la isku yiraahdo Pakistan iyo India qarnigii 16aad iyo qarnigii 17aad. Boqortooyada Mughal waxa ay xoojisay Islaamka Koonfur Aasiya, waxayna farshaxanka iyo dhaqanka muslimiinta ku faafiyeen gobolada oo dhan. Taj Mahal ayaa tusaale u ah jacaylkii ay u qabeen qurxinta dhismaha. Waaxda daraasaadka ee nashqadeynta India ayaa hoos taagan raadadkii hore ee Taj Mahal ay ku tilmaamtay dhismahani waxa uu ahaa dhismihii ugu wanaagsanaa ee boqortooyadii Mughal ay sameeyeen. Rana Sefi oo ah taariikhyahan ayaa BBC-da u sheegay in aysan jirin su'aal keeni karta in dib loogu noqdo taariikhda Taj Mahal aysan jirin wax caddayn ah oo loo hayo hadalka ah in halkaasi macbad uu ku yaalay. Waxaa jiri jiray dhisme uu lahaa Jai Singh oo Hinduuga hogaamin jiray, kaas oo meesha ku yaalay intii aanan Taj Mahal goobtaasi laga dhisin. Master Shah Jahan ayaa si rasmi ah u iibsaday ruqsadna u haysta ilaa iyo iminkana ruqsadaasi oo ay taalo Taj Mahal. Ruqsada ayaa sidoo kale tilmaamaysa sida ay boqortooyadaasi u diiwaangelin jirtay waxyaabaha ay qabtaan iyo sidoo kale taariikhdooda, ayuu yiri. Waa sidee aragtida ku aadan in uu macbad uu yahay? Katariyan ma ahan qofkii ugu horreeyay ee dalbada in la bedelo taariikhda Taj Mahal, balse hore waxa uu sameeyay sidaani oo kale oo kaga hadlay Purushottam Nagesh oo loo soo gaabiyo magaciisa oo ahaa taariikhyahan garabka midig u janjeera ayaa dhismahani uga yeeray Tejo Mahal, buug uu qoray sanadkii markuu ahaa 1989 ka uu ugu magacdaray taariikhda saxda ah ee Taj Mahal. Waxa uu ku doodayaa buugga uu qoray Taj Mahal in uu asal ahaan macbad Hinduuga ahaa, goobtaasna uu dhisay nin lagu magacaabayay hogaamiye ahaa Rajput. Master Shefde oo ah qoraa si dhow ula soo shaqeeyay Master Ogak ayaa BBC-da u sheegay in ay tahay in dawladdu ay u magacaawdo khubaro runta ka soo hadla, sidoo kalena soo baara taariikhda rasmiga ah ee Taj Mahal. Waxa uu sheegay in Taj Mahal uusan ahayn dhisme ay muslimiinta sameeyeen ee uu yahay dhismo ay leeyihiin Hinduugu, sidoo kalena iyagu ay dhiseen. Laakiin website-yada rasmiga ah ee dawladda ay sameysay ee dhismaha Taj Mahal loo sameeyay waxa ku qoran dhismahani waxa uu u taagan yahay qaab dhismeed kulminaya sidii ay wax u qaban jireen muslimiinta India iyo muslimiintii Farisiyiinta. Su'aasha nashqadeynta ka dhalan karta. Katariyan iyo Shefde labadooduba waxa ay ku doodayaan in Taj Mahal ay ku yaalaan nashqadeyntii calaamadaha u ahaa Hinduuga. Dayax ayaa cirifka sare kaga dhigan Taj Mahal. Dhanka Islaamka dayaxu waa uu qalloocaa, balse dayaxani ma qallooco, waxa uuna la xiriiraa dhanka dadka taabacsan sanamka lagu magacaabo Shifaaga Hinduuga. Waxa kale uu intaasi ku daray in muslimiinta ay mamnuuc ka tahay ubaxyada iyo xayawaanaadka, haddana dhismaha Taj waad ku arki kartaa, ayuu intaasi ku daray. Muqi ayaa diiday arrintaasi oo sheegay
in nashqadayntu waxa ay tahay mid dadkoo dhan ka wada dhaxaysa ubax iyo fiyooroyaal lagu xardhana aysan waxba ka bedeli karin diinta islaamka sidoo kalena kama duwna nashqadaha kala gedisan ee diimaha kala duwan lagu xardha waxaa kale uu BBC-da u sheegay in dhismaha mukaal aad ku arki karto calaamad muhiim u ah hinduuga sida tan Taj Mahal balse sidoo kalena caleemo iyo ubaxyo ku arki karto dhismaha kale ee boqortooyadu mukaal hore ay u dhiseen balse su'aasha taagan ayaa waxa ay tahay haddase maxaa keenay arrintan 10 sano Taj Mahal waxaa loo adeegsan jiray ololaha dalxiiska si loogu soo jiito dalxiisayaal fara badan oo dunida caalamka ku kala sugan oo mar walbana ku riyooda in uun mar ay tagaan Taj Mahal oo la sheegay inuu yahay qasri aad u weyn sidoo kalena taariikh weyn xambaarsan dadka badan ee gabya iyo kuwa waxyaabaha sheekooyinka qora ayaa Shah Jahan iyo Mumtaz Mahal ku soo qaata qisooyinka jacaylka ah iyaga oo la barbar dhigaya qofkii hadba markaasi ay sheekadoodu qusayso haddaba muxuu sheegashadani ka faa'iidayaa ninka lagu magacaabo Katiyar hadalkiisa ayaa ku soo aadaya iyadoo ay sare u kacayaan dadka ay hinduunimadu la weyn tahay siyaasiyiin badan oo ka tirsan xisbiga PGP ayaa iyaguna soo jeediyay hadallo kicin kara tan iyo markii ay talada la wareegeen sanadkii 2014 hadalka ugu dambeeyay ee Mr. Karyana waxa uu u muuqataa in uu soo dhaweynayo dadka hinduuga ay la weyn tahay hadalladaas kalena waxa ay gacan ka geysan kartaa in dadka ay ka wacyigeliyaan xaaladaha dhibaatada taagan sida shaqo la'aanta dhaqaale xumida arrimaha caafimaadka inkastoo aysan dawladdu India aysan ayeedin hadalkiisa haddase waxaa soo baxaysa kooxo badan oo garabka midig ah oo ku faraxsan oo doonaya in ay hinduugu halkaasi ku cibaadaystaan koox kuwaasi ka mid ahna waxay waqti dhow dalbadeen in dadka hinduugu aaminsan loo ogolaado in ay ku cibaadaystaan Taj Mahal oo looga dhigo waxyaabaha iyagu markaasi ay doonayaan waxa kale oo ay sheekadani ay dhalin kartaa dagaal diimeed ka dilaaca dalka India iyadoona boqortooyadii hore Mughal ay iyaguba galeen xilligii ay talada dalkaasi hayeen dagaal fara badan oo faraha looga gubtay kuwa oo la isku adeegsaday fardaha maroodiyaalka waxa ay ka dhaceen gudaha dalka India waxaana laga yaabaa in dagaal diimeed dib uu ugu dilaaco dalka India